kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka maanta aanu idinka hayno caalamka. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal balastiga u riday dhinaca xeebta bari ee dowladda jaarka iyo Kuuriyada Koonfureed. Militariga Kuuriyada Koonfureed oo ka hadlay dhacdadan ayaa sheegay arrintani ay tahay dandaansi kordhinaya xiisadda gobolka. Maalin ka hor ayay markii xafiiska madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed uu ka digay suurtagalnimada dhaqdhaqaaqa muujinaya in Kuuriyada Waqooyi isku diyaarinayso inay riddo gantaal balastig ah. Xogo sirdoon oo ay heleen waqtigaasi, Kuuriyada Waqooyi ayaa hadda riday 32 gantaal oo balastig ah sanadka 2022, waana kuwii ugu badnaa ee ay abid riddo hal sano gudaheed. Waxaa soo noqnoqonaya tirada gantaalaha ay Kuuriyada Waqooyi u ganayso dhinaca Kuuriyada Koonfureed iyo xeebaha Japan. Sidoo kale wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in Kuuriyada Waqooyi gantaal riddo gaaban u soo riday dhanka deegaanka Daejeon ee ka tirsan gobolka Pyongyang subaxnimadii Axadda saacadu markay ahayd 6:50 xilliga dalkaasi. Ilaalada xeebaha ee Japan ayaa sheegay in gantaalku hawada ku jiray qiyaastii wax ka yar 10 daqiiqo kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay ka soo rideen xeebaha bari ee dalkaasi. Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigtay gantaalkan riddada gaaban, kaas oo u muuqda mid loogu talagalay tijaabo lagu sameynayo in uu kaga baxsado difaaca gantaalaha Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Toddobaadkiina dhaafay ayay ahayd markii xeebaha Kuuriyada Koonfureed uu soo gaaray markabka caanka ee Mareykanka USS Reagan, oo ah markabka ay saaran yihiin raxanta diyaaradaha ee kor u dhaafaya 90, waxaana sidoo kale ku rakiban madaxyo nukliyeer ah. Mareykanka ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan wadahadal ay la galaan Kuuriyada Waqooyi barnaamijkeeda nukliyeerka. Mareykanku waxa uu kordhiyay dhoolatusyada uu ka sameynayo badda Kuuriyada Koonfureed iyo xeebaha Japan, labadan wadan oo Mareykanka xulafo la ah. Arrintaasina waxa ay ka cadhaysay Kuuriyada Waqooyi oo Mareykanka colaad gooni ah kala dhaxayso. Waxaa la filayaa toddobaadyada soo socda Mareykanka iyo xulafadiisu in ay sameeyaan dhoolatus ballaaran, taas oo Kuuriyada Waqooyi ku qasabtay gantaal digniina inay u diraan dhanka Kuuriyada Koonfureed. Halkaad nagala socotaan waa warbaahinta Dayib Shabeel.